daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta ee caawa qodobada aan ku qaadan doonana waxa ay kala yihiin Mareykanka iyo qaramada midoobay oo soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Ciraaq calooshood u shaqaystayaal la sheegay inay ka dagaalamaan gudaha Liibiya Mareykanka oo ku goodiyay inuu kala bixi doono ciidamadiisa Sacuudi Carabiya qodobada iyo qodobo kale ku soo dhawaada Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa waxa ay soo dhaweeyeen dawladda cusub ee ka dhalatay dalka Ciraaq haddaba qodobkaas ayaa uu noqon doona qodobka koowaad ee falanqaynteena caawa waxaa barnaamijka isku soo duway oo soo diyaariyay Maxamed Sakriya waa maasan tahay haddaan ku bilowno qodobkeena caawa Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa si wada jira waxay u soo dhaweeyeen dawladda cusub ee Ciraaq xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay inuu caawin doono ra'iisul wasaare al-Kadhimi waxa uu sheegay in isbedelka qaramada midoobay iyo guud ahaan taageerada ay u hayaan ay muujin doonaan sidoo kale waxay sheegeen inay dhaqan gelin doonaan codsiyadooda ku aadanaa Ciraaq saraakiil sarsare oo Mareykan ah oo diblomaasiyiin ayaa soo dhaweeyay dawladda cusub Ciraaq iyaga oo taleefanka kula hadlay ra'iisul wasaare Mustafa al-Kadhimi Mark Pompeo waxa uu sheegay in uu si adag ula shaqeyn doono isagoo oo sheegay in uu qadka taleefanka kula hadlay dawladda cusub ayaa noqon doonta mid isbedel laga sugayo Sakriye marka Maxamed halka hadii aan su'aal ka weydiiyo maxay ka dhigan tahay taageeradan UN-ka iyo USA ay taageereen dawladda cusub ee ka dhalatay Ciraaq maxay talaabo uga dhigan tahay dawladdaas haddaan ku sii wadno warkan UN-ka horta waa soo dhaweeyeen Sakriye Mareykankuna waa soo dhaweeyeen taas waxay ka dhigan tahay in ay rabaan isbedelka ka dhacay Ciraaq waxa ogsoonahay in Ciraaq ciidamo Mareykan ah lagu bartilmaameedsaday taasna la sheegay inay ka dambeysay Iran laakiin Iran laftigeeda waa lagu dhibaateeyay waxa laga diray sargaal sare oo muhiim ah dawladda Iran markaas wixii ka dambeeyay cilaaqaadka Ciraaq iyo Mareykanka inkastoo uu aad u xumaa haddana waxa la sheegay inuu sii xumaaday marka tan waxay ka dhigan tahay dawladdan cusub ee Mustafa al-Kadhimi in xiriir fiican uu la yeelan doono Mareykanka iyo qaramada midoobay haddaan eegno noloshiisa ra'iisul cusub waxa uu dhashay 1967 isagoo ku dhashay Baghdad kadibna 85 waxa uu gaaray Iran kadibna waxa uu sii guuray Jarmalka iyo Ingiriiska halkaas oo dhalashooyin ka qaatay waxa uu jaamacadda bachelorkiisa uu qaatay sharciga kadibna waxa la sheegay inuu shaqo dhinaca saxaafadda ah uu qabtay waxa kale oo la tilmaamaa inuu mucaarad ku ahaa oo ka soo horjeeday xukunkii Saddam Hussein intii uu ku noolaa reer galbeedka dabcan ninkan waxay ka dhigan tahay nin si fiican u yaqaana wadamadan galbeedka Sakriye markii duulaanka Mareykanka uu ku qabsaday Ciraaq 2003 ra'iisul wasaarahan wuxuu dib ugu laabtay wadankaas taas waxay ka dhigan tahay marka inuu yahay nin u dhow xukuumadda Washington waa hagaaga haddaba wararka naga soo gaaraya Liibiya ayaa sheegaya ciidamada calooshood u shaqaystayaal ah oo halkaas ka dagaalama tiradooduna kor loogu sheegay 1,200 in ay taageeraan generaalka mayalka adag ee loo yaqaano Khalifa Haftar ciidamadan ayaa waxa ay yihiin ciidamo aad u tababaran waxayna ka kooban yihiin ilaa 3 gruubka koobaad waa gruub ku tababaran qoryaha meesha fog wax ka toogta ee loo yaqaano shaashuutarka iyo sidoo kale gruub ka soo daata diyaaradaha xog ku saabsan barnaamijkaas waxaa soo indheeyay saaxiibkay Maxamed oo ila fadhiya Maxamed maxaan ka haynaa wax macluumaad ah ciidamadan calooshood u shaqaystayaasha ah sida la sheegay fadhigoodu uu yahay Ruushka muddada tirada la eegna ka muddada aadka u tirada dheerna ka dagaalamayay wadankan Liibiya waa ognahay Liibiya bariyay u dambeeyay xaaladiisa aad ayay wax u kacsanayd saxaafadda caalamka oo dhan waxay hadal haysaa Liibiya iyo axwaashooda iyo xaaladahooda marka maxaan ka haynaa wax warar ah xaaladda Liibiya iyo ciidamadan la sheegayo inay ku soo kordheen khatarta ah ee sida aadka u tababaran maxayse ka dhigan tahay talaabadan ciidamadan Khalifa Haftar taageerada uu ka helayo ciidamadan awood nooceeya ayaa ay siin doonaan maxaad macluumaad ka haysaa barnaamijyadaas waa maasan tahay tan iyo Abriil oo 24keedii saraakiil sare oo sirdoonka Ruushka ka tirsan
waxaa la sheegay in kulamo xasaasi ay yeelanayeen iyaga oo dhinacyo kala duwan la qaatay oo uu ka mid yahay madaxweyne Bashar al-Assad. kulamadaas waxaa la sheegay xataa qaarkood inay ka dhaceen Daraa meesha la yiraahdo. waxaa kaloo la tilmaamay in caloosha u shaqaystayaashan oo ah maleeshiyad ay ruushku rabo inuu u diro Liibiya. waxaa kaloo la tilmaamay in ruushka kulamadan uu aad u daneynayay 3 bilood ugu dambeysana ay ahaayeen mashruucan ama barnaamijkan mid soo jiitamayay. askari kastaaba caloosha shaqaysta ah ee maleeshiyadan ka tirsan waxaa la sheegay in $1,000 bishii la siin doono. waxaa kaloo la sheegay in ay gaarayaan 1,200 oo maleeshiyaad ah. dabcan waxay ka dhigan tahay in ruushka uu rabo in uu Liibiya awoodiisa siyaasadeed iyo midiisa dhaqaale uu uga faa'iideysto oo uu taageero siiyo Khalifa Haftar. marka waxaan u eegi doonaa kulamadan dhacay iyo sida noqon doonaan. sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in mid markaasi aad isha loogu hayo wuxuu saameyn doonaa maxaa la yiraahdaa Suudaan iyo Chad marka la eego oo dabcan xuduuday la leeyihiin wadankan Liibiya oo qalaasyo siyaasadeed ka taagan yahay. aad baa isha lagu hayaa warbaahinta aad bay ugu haysaa warbaahinta aad ay isha ugu haysaa qodobkan oo sirdoonka ruushka uu karkarinayo. maxamed maxaan ka ognahay dhaqaalaha ay meesha ay ka helayaan dhaqaalaha ciidamadan calooshada shaqaystayaasha ah ee ruushka ka soo jeeda xagee ayay ka helayaan dhaqaalaha inta tirada la eeg ee General Haftar uu siiyo iyadana maxaad ka haysaa wax macluumaad ah taas waa dabcan waa sheegnay ruushka ayaa bil walba wuxuu bixin doonaa $1,000 sidaas ayaa waxaa qoraya warbaahinta. haddaanu eegno Al Jazeera iyo wakaaladda wararka ee Turkiga Anadolu iyadoo soo xiganayso ila wareedyo waxay daabacaysaa in ruushku uu $1,000 siin doono askarigii walbaaba oo ciidankan ay tababar lagu siin doono Syria horta lagu tababari doonaa kadib waxaa loo diri doonaa Liibiya. Khalifa Haftar ka barbar dagaalami doonaan waa maleeshiyad si fiican loo tababari doono. hubka waxaa siin doona ruushka tababarka sidoo kale la siin doonaa. waliba waxaa la yiri qolooyinkan waa kuwa wax toogta dagaalka ku gala ciidamo hubeysan oo ka barbar dagaalamayo saanadooda iyo dhaqaalahooda iyo hubkoodana ruushka wata. laakiin qorshaha iyo wax uu ka wato inkastoo aysan cadeyn haddana waxaa la dareemayaa inuu diidan yahay dowladda meesha ka jirto uu aad uga soo horjeedo oo uu rabo in awoodda Khalifa Haftar uu kor u soo qaado si dowladda meesha uga baxdo Liibiyana uu saameyn ku yeeshay iyo gobolkaba. haddaba wixii warar oo ka soo kordha qodobkaas waxaan ku eegi doonaa wararkeena dambe waxaana ku hayn doonaa isha. markana haddii aan eegno wararka naga soo gaaraya magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga ayaa waxay sheegaysaa halkaas inay ka taagan yihiin jahawareer siyaasadeed oo u dhaxeeya Washington iyo Riyadh. dabcan xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka ayaan in dhaweydba hagaagsanayn. wararka naga soo gaaraya magaalada Riyadh ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in halkaas ay ka taagan yihiin jahawareer siyaasadeed. wixii warar oo ka soo kordhay waxaa isha ku soo mariyay oo soo fiiriyay maxamed oo barnaamijka ila daadihinaya. maxamed maxaan ka haynaa wax warar ah arrimahan la xiriira in Mareykanku uu sheegay in ciidamadiisa uu kala bixi doono Riyadh. maxaan ka haynaa xog oo waxa weeye daawadayaashayda aan la wadaagi karnaa. sida uu daabacay wargeyska afka dheer ee Wall Street Journal isagoo soo xiganaya saraakiil Mareykan ah shalay oo Khamiis ahayd 4 ka tirsan hanaanka difaaca ee Patriotic Service la yiraahdo ee ah gantaalada cirka ayaa la sheegay in iyo qalab kale oo military inuu Mareykanka kala baxay gudaha dalka Saudi Arabia. xiisadan muddo ay soo jiitamaysay iyadoo oo la ogsoon yahay xiisada bariga dhexe markii dhowr jeer hore ay dhacday in xuutiyiinta ka dagaalanta Yemen ay gantaalo ku weerareen Saudi Arabia. taas waxay keentay in dowladda Saudi Arabia ay dhaleesho systemyada Mareykanka ee difaaca cirka iyo qalabka kale ee military ee Mareykanka uu ku caawiyo ama ku taageero Saudi Arabia. xiisadaas waxay keentay in Saudi Arabia iyo Mareykanka ay taageerada dhinaca militariga ah iyo mid ciidanba ay hoos u dhacdo. marka arrintan waxay noqonaysaa tallaabadii ugu horeysay ee Saudi Arabia iyo Mareykan oo muddo dheer xulafo ahaa in ay hoos u dhac ku imaado. maxamed waa mahadsan tahay. markana haddaan eegno qodobkeena ku jira wararkeena falanqaynta Trump iyo Putin oo ku wada xiriiray khadka telefoonka.
Trump waxa uu sheegay inuu la hadlay madaxweynaha dalka Ruushka Putin waxaana ay sheegeen inay ka wada hadleen guushii ay ka gaareen dagaalkii labaad ee adduunka. Maxamed maxaan ka haynaa wada hadalkan dhex maray Putin iyo Trump, maxaan ka haynaa wax macluumaad iyagana? kulankan waa mid dabaaldeg ah oo aan micno badan hadda ku dhisnayn sheegidiisa, laakiin ay xusid mudan tahay in sida xulafada adduunka u yahay marka la eego shaacintiisa. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin shalay oo Khamiis ahayd wuxuu qadka taleefanka kula hadlay hogaamiyaasha Mareykanka iyo Faransiiska isagoo oo guul weyn ku tilmaamay 75 sano guuradii ka soo wareegatay guushii sida ay sheegeen ay ka gaareen dagaalkii labaad adduunyada. war-saxaafadeed lagu daabacay website-ka madaxtooyada Kremlin-ka ee dalka Ruushka ayaa waxaa la tilmaamay in Putin iyo Trump ay muddo dheer ka wada hadleen oo saacado ah ahmiyadda iyo taariikhda fog ee isbahaysigii iyo xiriirkii u dhaxeeyay Mareykan iyo Ruush intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunyada, sida lagu yiri warka qoraalka ah ama war-saxaafadeedka ka soo baxay aqalka Kremlin-ka. waxay tilmaameen in naasigii Jarmalka ay ka adkaadeen dagaalkii dhacay 1945. saddexdan hogaamiye aad bay arintan uga hadleen, guulo ay ku tilmaameen. dhinaca kalena waxaa xusid mudan in ay soo hadal qaadeen cudurka COVID-19 oo saameyn ku yeeshay wadamo badan oo caalamka ah, gaar ahaan reer galbeedka. Mareykanka saameyn xooggan ku yeeshay, Faransiiska sidoo kale, Ruushkana sidoo kale aad bay hadda ugu dhibtooneen cudurkaas. marka kulankan wuxuu ahaa mid hambalyo iyo bogaadin ah oo ay iskaga xal wareysanayeen sida ay guulaha u gaareen, taariikhda fog iyo sida ay hadda xaalku yahay. marka kulankaas wuxuu ahaa mid guulo iyo sida ay sheegeen ay ka gaareen dagaalkii labaad adduunyada oo iskugu hambalyeynayeen. si kaliya gabagabadan oo ku sugannahay maxaa la yiraahdaa, waxaa ogsoonahay in Soomaaliya kiisas cusub laga soo sheegay oo COVID-19 ah. arrimahaas adiga ayaa si gaar isha ugu hayay, bal maxaa ka soo kordhay gabagabadii? qodobkeena ugu dambeeya ee barnaamijka ku gabagabeyn doona waxa uu noqon doonaa xaaladda cudurka kiisaska coronavirus ee dalka Soomaaliya gudihiisa. 7 bisha shanaad sanadka 2020 waxaa la baaray 55 kiis, 41 kiis oo kamid ahi waa Banaadir, 13 kiis waa Puntland. Hirshabeelle waxaa laga helay kiis. tirada guud ee kiisaska laga helay Soomaaliya waxa weeye 928. tirada bogsatay ilaa hadda waa 106. tirada guud ee dhimashada waa 44. saameyn weyn ayaa ka taagan cudurka coronavirus ee gudaha Soomaaliya, waxaana muuqata in tiradiisu ay maalinba maalinta ka dambeysa kor u sii kacayso. haddaba daawadayaal waxaan caawa intaa kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena falanqaynta. waxaa barnaamijka caawa isku soo dubay oo soo diyaariyey saaxiibkii Maxamed oo barnaamijkii la daadihinayay. intaas iyo kulan dambe waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.